السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mid ka mid ah taariikhaha iyo shakhsiyaadka aynu kusoo qaadano barnaamijkeena inagoo toddobaadkan barnaamijka ku faaqidi doona taariikhda la yaab kale ee ay ka tagtay haweeneydii xaaska u ahayd madaxweynihii hore ee Suuriya Xaafid al-Asad waa hooyada dhashay Bashaar al-Asad iyo Maahir al-Asad. haddaba hooyo noocee ayay ahayd? magaceeda waxaa la dhihi jiray Anisa Makhlouf ayaa la dhihi jiray magaceeda. Anisa Makhlouf qof noocee ayay ahayd? ninkeedu wuu naxariis darnaa, dadka wuu layn jiray, wiilasheedii dadka ayay sirciyeen oo ay laayeen. ma iyadaa ku tarbiyeysay? iyada maxay ka samaysneed? qof noocay ahayd? waxaa la sheegayaa inay iyada laftirkeedu maskaxdii ka dambaysay dadkan in sidaa loo galo inay ayada ahayd. sidaas ayaanu barnaamijkeena toddobaadkan ugu soo qaadanaynaa Anisa Makhlouf. Anisa Makhlouf waxay dhalatay sanadkii 1930 waxayna dhimatay sanadkii 2016. 86 sano ayay noolayd. haddaba taariikhdeeda iyo sida ay isku barteen iyada iyo Xaafid al-Asad ayaynu marka hore barnaamijka idinkugu sharaxi doonaa. Anisa Makhlouf waxay ka dhalatay qoys hodan ah oo taajiriin ah. waxay ku noolaayeen deegaan ka tirsan gobolka Laadiqiya. taajiriin ayay ahaayeen ciddooda. aabaheed wuxuu ahaa nin taajira oo lacag haysta. waxbaa la baray. waxay noqotay maclimad iskuul Faransiisku ay markaa maamulayeen. Xaafid al-Asad wuxuu ahaa askari. wuxuu wax ku soo bartay waddanka Masar. isagoo askari maskiin ah ayuu ku soo laabtay dalka. wuxuu arkay gabadhan maclimadda ah, habkeeda iyo dabeecaddeeda iyo nidaamkeeda iyo uu ka helay. gabadhii ayay is arkeen, way sheekaysteen, way isfahmeen. halkaabaa marka waxaa ka abuurmay jacaylkoodii iyo rabitaankoodii ugu horreeyay. Anisa Makhlouf markay muddo wada socdeen iyada iyo Xaafid al-Asad ayay waxay u timid familkeedii ama reerkeedii. aabaheed waxay ku tiri, waxaan doonayaa inaan guursado wiil la yidhaahdo Xaafid al-Asad. odaygii aabaheed wuxuu yidhi, Xaafid waa qof noocee ah? markaase waxay ku tiri, waa askari. haguu degan yahay? meel heblaayo. bas anaa warku siinayo yidhi, waa igu soo noqonaysaa. odaga marka gabadha waxbuu baray. dadkana carabtaa sidooda dad isla weynin badanoo kibir badan ayaa ka buuxa. odagii isagaa soo baxay. wuxuu soo aaday meeshii loogu tilmaamay inuu degan yahay Xaafid al-Asad. markuu yimid meeshii, xaafad saboolay ahayd. guriga ugu saboolsan dadka ku nool ayuuba ninkanka ka soo jeedaa. iyadoo xaafad sabool tahay oo dad iska danyar ay degan yihiin ayaa haddana gurigii ugu liitay guryaha ayuu Xaafid al-Asad waa kanaa gurigoodii waaylay. odagii marka carabka ahaa wuxuu yidhi, annaga al-Makhloufana la yidhahdaa, dad taajiriinaan ahay. gabadhayda aanu intaa wax barayay ayaa suuqan gurigan degan inuu guursado wallaahi sadhaaynu dhahay.
masaasa ninkii waa soo baxay gabadhii u yeeray aniisa ayuu yidhi waa timid markaasuu wuxuu ku yidhi dhegayso ninka aad iga daba wado ninay anfaca maaha isku mustawa ma tihiinuu dhahay mustawahaaga nin u dhigma maaha xataa ninkaasoo agdhow oo la qaado kara xataa maaha sabool waaye kuwa ugu saboolsan waaya dara maxay tahay ma waxaasa adiga nin ahaan u dooranaysaa gabadhii marka waxaa la yidhi way ila carootay way xanaaqday ninkay aada u rabtay kadib mar kale isku dayday inay qanciso waalidkeed way ka diideen ninkii way raacday marka wadaadda calawiyiina oo shiica inta u tageen ayaa waxaa la yidhi aabbahaasuu kuma diidin inuu ninkaa ku siiyo haa waa kugu mehersanta ninkii waa mehersado familkeedii reer makhluuf marka way gooyeen bataatan waxay yidhaahdeen ma naga tirsanay gabadhaas aniisa gabadha la leeyahay ninkaa miskiinkaa raacday innagayna ceebeysay kuma jirto familkeena khalaas ninka xaafida ninkaa nin xariif u ahaa waa galgal badnaa soo meelaha u galgalayay afgambiyo ku lug yeeshay lixdameeyadii waa la xiray markii dambe xukunkuu qabsaday markuu marka xukunka qabsaday xaafid al asad aniisa makhluuf waxay noqotay marwadii koowaad markaa xukunka uu qabsanayo ilmaheeda way joogaan ilaa 3 cunug 4 miya haysataa waxay dhashay iyada wiilkeedii curudka ahaa waxaa la dhihi jiray Basil wiilka labaad ee dhashay wuxuu ahaa Bishaar al Asad kan saddexaad wuxuu ahaa Maahir da'deeda afaraad ee dhashay waxay ahayd Bushra al Asad midka ugu yar wiilka ugu yar wuxuu ahaa Majid al Asad shantaas ayay dhashay odagana shantaas uu haystay marka labadoodu shantaa cunug ay dhaleen markii ninkan madaxweyne uu noqday wadankii uu qabsaday xaafid al asad maadaama marka aniisa ay ahayd qof reerkoodii iyo dadkoodii uga soo go'ay isaguna martabatul a'laa wax la raawsi xaas waa dhaaftay xaas ma aha midaan mustashaar la taliyahayga amarkeeda shaqeynaayo markaas waxay noqotay marwada koobaad ahna go'aamada la gaaro midaysan ka tala bixin male dadkan hala xasuuqa haday tiraa waa la xasuuqa odaga war kale ma soo celinayo dadkan hala laayo waa la laynaa marwo waxay ahayd laftirkeedu aan caadi ahayn waxyaabo badan oo odagu ka warwareegin jiray iyada amarka bixin jirtay lay dhigi jirtay dadkaas wuu layn jiray amarkeeda marka wuxuu noqday mid ka shaqeeya markii marka xoogaa hawshu isku dhacday oo ninkani wadanka qabsaday oo laagtan marwada koowaad noqotay reer makhluuf waxay bilaabeen inay xoogaa u soo dadusaan maamada odaga laakiin go'aanu meel dhigtay reer makhluuf waxa oo ii soo dhawaan kara malayo nimankiisa ogeedeen noo bahdilay meeshoodaas ku nabad galeen haday gacantayda yadayda aan dadka ku laynaa ka nabad galaan nasiib leeyihiin iyaduna ma ku dhibi jirin way ogeyd meesha ay kala taagan yihiin adeegeeda iska qabsan jirtay waxa iyadu tari karto oo marwada koowaad ehelkeeda tari karto way tari jirtay laakiin ehelka laftirkoodu dad iska ladan ahayna lagu leeyahay wax problema ma qabin macnaha dad u baahan maanta madaxtooye inay ku xirmaan oo ma ahayn dad iska lacag loo ehel maartay fiican ka soo jeeday wuxuu waqtigu isku raba ayada iyo odaygeedii xaafid al asad waxay ka tashadeen inay maartay u dhisaan wiilkooda curadka ah inuu bedelo aabihii waliyul ahd in loo sameeyo dhaxal suge curadka wiilka curadka waxa la yiraahdaa Basil labadoodu waa isku waafaqsanaayeen marka
in baasil uu aabihii bedelo. odaga marka waxaa laga helay sarataanu dam wax la yidhaahdo, waxa waaye dhiig kar baalka maaragtay kansarka dhiigga ayaa waxaa la yidhahdaa sarataanu dam la yidhahdaa. kansarka dhiigga laga helay. odaga xanuuna kusoo batay, iska tabcaanay. baasilkiyaa marka la diyaarinayaa. baasilka waa wiilkooda curadka ah. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa loo soo sheegay waxa la yidhaahdo khabar say, macnaha war xun oo murugaa loo soo sheegay. wiilkiodii baasil ay odaga inay ku bedelaan rabeen shil gaari ku dhintaaliin. wiilka wuxuu aada u jeclaa riyaadada maaragtay fardafuulka, fardaha iyo waxaan iyo sida loo fuulay waxaan uu aqoon jiray. marka wiilkii waxaa la yidhi shiluu ku dhintay. habartii aaday u jeclayd wiilka aniisa makhluufada way shoogtayoo way qaylisayo maxaa soo laabanaa waa tegi kaas. sawirkiisiyo weyn ayay waxay ku dhegsan jirtay qasriga madaxtooyada, meel walbay ku dhijisay say u jecleed macnaha wiilkeeda curadka ah baasil. kuwan hadda joogaa uma jeclayn, wiilkaasay aada u jeclayn. odaguna waa jeclaa. muddo markii marka geeridii ay dhammaatay, amaamadii odagii waa la isku soo laabtay. waxaa la yidhi yaa dhaxal suga ka dhigaynaa. habartaa wadata qorshaha marka. baasil waa dhintay tiri, yaan kugu bedelnaa haddaad dhimato, adiga waa kan kansaraa qabtaay, waa sii socotaay, yaa xilka sii haynaya. markaasuu wuxuu yidhi adigay kulatay. iyadu marka waxay wadataa maahir mid kale leeyahay oo hadda dadka halaagay oo xabsiyada furahooda iyo dadka eber ka dhigay. maahirkaasay habartu wadataa. curadkana waxaa ku xigay bashaara weyn. maahirkay bashaara weyn, maahirkuu kusii xigaa. ma garanaysaa? habartu marka maahiray wadataa. marka wuxuu yidhi maxay kulataa maahir maxaa ku keentay? xaafidku nin caqli badan oo ah. markaase waxay tiri maahir waxaan u keenay ninkan bashaar la leeyahay waa dadka maqana joogaha oo kala waaya tiri. mar dambuu soo baraarugaay tiri, wiilkayga anaan dhalay waa garanayaa, kan waddan laguma aamini kara tiri, adduunkaa maba la socdaba, dadka iska maqmaqan camal waaya tiri. mar dambe wuxuu leeyahay yaa maxaa dhacay? odaga wuu yaabay. marka waxay tiri ninkaanaa nin karbeeda. maahirka mid kale leeyahay waa halaagay tiri, kanaa maaragtay cajiiba, kanaa laga dhigaa madaxweynaha, markaa dhibato kanaa ku bedelaya. odagii marka wuxuu yidhi maya aniga kaama yeelin. aniisoy wuxuu yidhi warkaagu weligay war ma saarin. u fiirsada, warbixin cajiiba waaye. aniisa makhluufey warkaaga war ma saarin. waxaad igu qabsatana waa kuu sii dayn jirin, laakiin tan makaa yeelaayuu dhah. maxaa dhacay tiri? wiilasha curadka ah sida ay u kala weyn yihiin ayaa mid walba nasiibkiisa ugu soo aadaa xolka. inta aan nool ahay hadduu isna dhinto bashaar, maahir markaasuu imaana. laakiin bashaara hadda wuxuu yahay ninkay bedelaya, maadaama wiilkii ka weynaa bashaar uu dhintay, isaga uu hadda ku xigo. bashaar maqana jooga ha noqdo, nin dhagoola ha noqdo, nin aan waxba ogeyn ha noqdo, wuxuu raba ha noqdo. ninkan waxay leedahay maqana jooga waa leedahay dhakhtar waayuu dhacay oo maaragtay cilmiga bartay ee indhaha, dhakhtar indhaha waaye, nin wax bartay waaye. marka naga dhaafuu dhahay bulanka badan. habartii marka warkii way qaadan weyso, way baxday. muddoay soo maqnayd. ma harayso. aniisa makhluufa la yidhahdaa, wax xaraama. way soo laabatay. waxay ku tiri dhegayso, ninkiyaa wadaaya tiri, aniga maahiraa wataa. oo maahir sultaan maalin hore ka hadalnay. maalin hore intay isu nimid sultaan iska qancinay oo maahir ku iri warkaagu war ma saarin aniisey ee iga leexo, ninkaa ii dhaaf, wiilkaan niyadda ha ka dilin. markaase waxay tiri midaa samaynay tiri. marka sheekada ugu yaabka badan waa mogtaa oo la yaab kale taariikhda. markaa waxyaabaha aadka loogu qoslay waxaa ka mid a, waxay tiri shacabkaan u bandhigaynaa. xaafid wuxuu yidhi sidee ugu bandhigaynaa?
markaasi waxay tiri waxay kala dooranayaan maahir iyo bashaar keebaa laga dhigaa dhaxal sugaha ayaa cod loo qaadaa ay tiri shacabka suuriya war meel fadhiisuyna annaga ma doorashaa kuwii baanu yidhi annaga ma doorashaa kuwii waddankaa xooga ku haysanaa shacabka kuwa babooyinka la dhacno maalin walba aan xabsiyada ku gurnoo laynoohay kala doorta maxay furiya sheekadaas iga dhaafu dhahay aniisooy meel iga fariiso aniga waa xanuunsanahay warkaagu war ma soo saarin wiilkan bishaara bedelaya maahir maarata haddaan dhintay bedelaya maahirkan bishaar ku xigaa ee iga leexu dhahay mar dambe hawsha ayaana isaga imaanin habartii waa tagtay waa la kala joogay sanadkii 2000 markii la gaaray xaafid al asad waa dhintay xaafid ma dhintay haa dardaarankiisu bashaar ma aha haa bashaara loo caleemo saaray habartu de weli way diidan tahay ogaada waxaa la yidhahdaa habartii gaangiistarada aheedaa la yidhahdaa waa khatar waxay u bixiyaan suuriyaanka maaragtay zawjatu jazaar assuuriya la waxaa la yidhahdaa xaaskii kawaanlihii suuriya la ayadaaba halaag kala odayga markuu dhintay bishaar loo dhiiba meesha bishaar dee gabar u qabay oo dhalasho ingiriisa haysata oo meelahaas ay isku barteen gabadhii uu qabay soo maa bishaarkii gabadhiisii marwada koobaad inay noqoto waayo maaragtay odageedaa wuxuu yahay madaxweynihii waddanka iyadu inay marwada koowaad noqoto maamadii waxay tiri wallee ka tahay xilkan marwada koowaad anaa iskalay tiri naahoy meel fadhiisay tiri gabadhii waa yaabtay mar dambe marwada koowaad idaacad sheegi karta xataa male tiri waraa xaafidaa dhintee tiri ani ma dhintay aniga markaa xaafid markuu dhintay marwada koowaad muu la dhimanaa anaga ha ii keenina tiri horbaamadii waa laga yaaba bishaar wuxuu yidhi waayaa hooya haya hawsha adaa lagu daayay odagiiba hadduu dhintay ogaatay reer makhluuf dhana keentay wiilkan walaashayaa dhashay amniga u dhiib kan maaragtay itisaalaadka ama isgaarsiinta u dhiib kan saas u dhiib ganacsigii siyaasadii xisbiga amnigii wixii oo dhan reer makhluufa qaatay bishaarku waa dhoohana waay waa iska soo jaagaya meesha isagu waxba si hooyadiisa sheegaysa waa moog maahirkiina waxay tiri bishaar dhagayso ninkan maahir la leeyahay awoodda waddanka ciidamada iyo waxa dhan isagaa iskale tiri adiga kursigaas fadhi maahirkana waxay ku tiri laay dadka aabbahaa wuxuu samayn jiray qoladii meel ka mudaaharaadaba inta u tago layn jiray adigana waa inaa laysaa maahirkiya marka waxaa loo dhiibay guutadii ugu ciidanka iyo hubka badneyd ee madaxtooyada ilaalinaysa ciidanka ilaalada madaxtooyada xaarisul jamhuuriga aa la yidhahdaa ciidankooda waxay ku magacaayeen ciidankii Saddam Hussein ilaalin jiray xaarisul jamhuuriga iyo kuwan isku mid ahayn ninkii markaa awooddaasi ku mashquulisay kan kursigu iska fadhiyaa naagtiisu marwo koowaad ma hawsha saasay ku socotaa 2011 marka rabshadihii yaa bilowday kacdoonkii Suuriya markuu bilaabanayay bishaar wuu ku wareeray wuxuu sameeyo aqoon way u yeertay kaale tiri waraa adiga aqli ma jiro miyaa tiri maxaa dhacay yiri hooyo war waxay tiri dadkan maanta oo dhan waxaasaan rabnaa hadday yiraahdaan waxaa la kala gaartid male ee dadkan hal luqada yaqaanaan aabbahaa uu ku samayn jiray haye dadkan laaya tiri amaraysiisa waxay tiri dadkan laay baaba ka dhig masaasa ahaa sideeda warkeedii u qaatay inta meeshii wiila iyadoo habaryaro u tahay u dirtay oo maaragtay reer makhluufka inta ka adeejisay aad dadkii sunniyiinta ahaa nagta laga geliyay waxa dadka laynaa xabsiyada ku guraa amarada ay ka soo baxayaan waa zawjatu jazaar waay xaaskii kawaanlaha waa aniisha makhluuf abarta la leeyahay caadi ma habarta qisadeeda hadii laga sheekeeyo waa yaabaysa dadkan la laayay waxa dhan ayada maskaxdeeda lagu leeyahay bishaarkii waxay ku tiri hadaa dadkan waxay rabaan aashiisid ma dhargaayaan marka waa inaad dishid si aad u xukuntid
amarkeedii uu qaatay dadkii waa laayay siday hawsha u socotay marka waxaa jiray markaa waagii maamadu ay waday iyo odaga aan waxay gadaal idin celiyo ninka la yidhaha xaafid al asad iyo maamadu intay isku haysteen bishaar ay bedelaa iyo mahar ay bedelaa gabadhoodii bushra ahayd waxay iyadu la safnayd aabaheed waxay rabtay bishaar maahirka ma ogolayn sababtu maxay tahay maahirka wuxuu necbanaa ninka iyada qaba seedigiis ma arki karin ninkaas ninka maaragtay walaashiis qaba maba arki karin maahirka bishaarku ma kala jeclayn marka iyadoo aabaheeday la dhisaysa bishaarka waxay isleed maahirkan baash hadduu meesha yimaado ninkuu kaa dilaayo ilmahu kaa laynaa nin naxaana ma aha maahirku waa nin khaayina oo dilaa ah oo daroogistaa waay waa ninka loo bixiyo layidhi maxaa waaye imberadoorul mukhadaraat ninka ay yidhaahdeen waaye suuriyaanka boqorkii mukhadaraadka ama daroogada ninka loo bixiyo waaye nin naxa maaha marka gabadhii markaasay ninkan ay diidanayd ee maahirka bishaarkay ogoleyd laakiin maxay kugu taalaa bishaarka magacuyaal iska noqdo kursigu inta habarta ku fariisisay ee awooddii iyo ciidankii iyo wixii oo dhan maahirkay farta ka saartay adigana inta ku feestay tir adigana kursigaas fariiso adigana wadankan ku raaxayso dadka nagta ka geli markii la yiri sanadkii 2012 gabadha isaga la dhalatay ninkeedii ayuu khaarijiyay bushra ninkeedii isaga cunay maahira cunay markay xaqiijisay bushra in maahir dilay bishaarna uusan waxba ka qaban karin ayay waxay tiri aniga wadankan waa ka tagay waa idin dhaafay qaxootiga waxaan ku noqonayaa imaaraadka caruurta inta ii hartu iga dilay tiri maahirkan ilmahaygu dila aabahood soo ma dilin haddana ilmahu iga dilay tiri hooyo marka waxay tiri anigu waa tagaa habartu waxaa la yidhi aaday uga xumaatay falka maahir ku sameeyey way ka xumaatay gabadhii way guurtay ayadii ciyaalkeeda waxay weydiisatay magangelyo imaaraadka meel dejiyey way iska guurtay meeshay u guurtay maamadii markay xoogaa joogtay dee gabar dhan waxay ka leedahay iyada maaragtay gabadhaasay ka leedahay wiilkeedii yaraa marka waxaan idinka soo tegay sheekada wiilkeedii yaraa maajid mid la dhahayo lahayd maajidka marka isagoo yaroo isna xanuunsaday waa dhintay marka waxaa usoo haray kii weynaa waa ka dhintay kii yaraana maaragtay baasil u ahaa kii weynaa waa ka dhintay kii yaraa maajidkana waa dhintay labadan wiil iyo gabadhan keliya usoo haray iyada dhan shantaasay dhashay gabadhii markay carartay iyadana duqdan waayeelay noqotay mogta gabadheedii raacday waa idin dhaafnay tiri wadankii waa kaas waxaa rabtiin ku sameeya adiga walaalkaa soo maynaan dilin maaragtay walaashii ninkii qabay soo idinkama baxsa weynin way ka tagtay habartii marka halkaasi u wareegeen iyada iyo maaragtay iyo gabadheeda sanadkii marka 2016 ayaa telefishinka suuriya wuxuu sheegay in maamadii dhimatay oo ay xanuunsatay oo dhimatay 86 sano iyadoo jirtay dhimatay yiri Anisa Makhlouf marka wararku laba isla dhex marayaan waxay leeyihiin maamadu iyadoo iska joogtay imaaraadka dhimatay markay dhimataa la qaaday waxa la geeyay Suuriya lagu aasay qaarna waxay leeyihiin markay aad u tacbaantay ayay qaadeen wiilasheedii oo Suuriya geysteen meesha ku dhimatay laakiin telefishinka Suuriya wuxuu sheegay inay ku dhimatay Suuriya marka maamadii marka sidaas iyaduna Anisa Makhlouf ay ku dhimatay sanadkii 2016 marka 2016 waxayna dhalatay sanadkii 1930 marka 86 sano iyadoo jirta ayay halkaa ku dhimatay marka barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanay xaaskii kawaanlihii Suuriya xaafid al asad xaaskiisii Anisa Makhlouf iyo taariikhdeeda iyo wixii ay ahayd ayaynu barnaamijkeena qaybtan ku faahfaahinay haddaba toddobaadyada soo socda iyo taariikho kale iyo arrimo cajiiba ayaan idiin soo ururin doonaa inta aan mar kale barnaamijkan lamid ah ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo